halkani waa xarunta xisbiga Samo ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Gudoomiyaha xisbiga Samo ugaas Awood Sheekh Xuseen oo wareysi gaar ah siinay telefishinka Tusmo TV ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr oo quseeya arrimaha siyaasadda dalka si gaar ah. hadalkii dhawaan ka soo yeeray xukuumadda federaalka Soomaaliya ee la xiriiray in doorashooyinka dalka ay qabsoomi doonaan bisha Febraayo 2021 aysan bil ugu dari doonin. كل أنا قصيلا إلى تهاي أما حسب إلى تهاي معها مسنانة مدحوينها بلس وحواي رئيس وزراء يوم مدحوينها وها كسي وينو هلقي وقبت رئيس وزراء إن سوماليدو إسويديسو مسور تويسا مثل مسور تويسو مدرسة وين وايو وها كجرا وحوينو مستقبل كدلك deganaanshaha siyaasadda ay ku jirta marka taas ayaa muhiim ah in maxaa la yiraahdaa hadalka ra'iisul wasaaraha iyo xilliga la joogo iyo waqtiga hadda noo dhiman inaan taas horta qiimeyn ku sameeyno aan isiraano marka suuragal ma aha taas ayaa ugu muhiimsan waxaan isleenahay horta ra'iisul wasaaraha baaqa uu sameeyo waa mid qurux badan fiicnaan haddii ilaahay yiraahdana waa rajaynaynaa inuu sidii ugu dhawaaqay ilaahayna ugu hergeliyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga ayaa ka hadlay ammaanka guud ee dalka isagoona taasi walaac kaga muujiyay in doorashooyinka dalka ay saameyn ay ku yeeshaan maadaama dal aysan amni ka jirin ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah waxaad moodaa inay meeshaas ay suuragal ahayn sababta waxa waaye waxaan ognahay markii doorasho laga hadlayo horta waxa ugu horeeya amniga dalka markii hadii ay doorashada aan ka hadlayno jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa waaye waa inuu amniga jamhuuriyadda Soomaaliya ay ku jirto hukuumadda ama dawladda ku jirto haddii aan xisaabtano waxaan u jeednaa inaysan intaaseeto amnigaas gacanta ugu jirin dawladda xilligan waqtigan la joogo sababtoo waxaan u jeednaa in gobollo badan iyo dagaalo badan iyo iska horimaad badan oo siyaasadeed inay jiraan sida darteed qodobkaas amnigaas marka aan soo qaadno waxaa noo muuqda inaysan suuragal ahayn xilligii ra'iisul wasaaraha uu ku dhawaaqay arrintaas in ay doorashadu inay dhacdo geesta kale gudoomiyaha xisbiga Samo ugaas Awood Sheekh Xuseen ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka si gaar ah maamulada Jubbaland iyo Puntland oo uu sheegay in mar hore loo baahnaa in dawladda federaalka Soomaaliya ay soo afjirto si dalka ay ugu qabsoonto doorasho loo dhan yahay sidoo kale haddii aad fiiriso maamul goboleedyada naftooda waxaa ka jira qaarkood yani wili herdis ayaa jira arintii Somaliland maxaa la yiraahdaa waqooyigan leeyahay ama Somaliland aan yiraahdo wili meel la og yahay oo heshiis laga saaray ma jiro sida darteed ma la dhihi karo doorasho one man one vote waa dhacaya jamhuuriyadda Soomaaliya dhana ka dhacaya ma la dhihi karo haddii la leeyahay qayb ka mid ah I don't know inay saas ay noqoto marka waxaan isleenahay in kastoo aan leenahay ilaahu hadalkiisa rumeey ila ilaahay wixii rumeeyay waa gaarkiis waa laakiin aniga hadaan xisaabtano bini'aadan ahaan siyaasad ahaan qof ahaan waxaan u jeednaa meeshaas inuu uleys badan ku jiro oo la mid tahay maxaa la hadalka iyo fulinta dhaxdooda badba dhax yaala ayay u egtahay Awood Bashiir Cabdiraxmaan Tusmo TV Muqdisho.